inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto waa kuma sunta daawashadaada. Wiil lagu magacaabo June ayaa subax hore hurdada ka soo kacay waxa uuna helay waraaqad ay uga tageen qoyskiisa iyagoo ku sharaxaya inay si degdeg ah u baxeen balse waxa ay uga tageen lacag uu ku soo dukaamaysto haddii uu wax u baahdo. June waxa uu bilaabay inuu ciyaaro ciyaar game ah isagoo la ciyaaraya saaxiibadiisa si online ah si uu soo bandhigo baraha bulshada. laakiin ciyaartii waxa hagad galiyay ciyaaryahan kale oo isagoo u sheegay inay daawadaan wararka TV-ga waxaa yeelay wax weyn ayaa dhacay isla markiiba June waxa uu shitay TV-ga barnaamijyada caadiga ah waxaa jiray digniino degdeg ah oo soo dhacayo taasoo lagu ogeysiinayo dadka in musiibo ay dhacday. June waxa uu helay fariin degdeg ah oo ku soo dhacay moobilkiisa ka hor inta uusan daaqada fiirin waxa uu arkay wax cabsi leh zombie ayaa magaalada qabsaday waxa ayna laynayaan dadka oo ku kala farxanaya wadooyinka jidadka waxaa ka taagan fowdo baabuurtuna way isku dhacayaan taasoo keentay qarax yar. gabar ayaa hooyadeed ku qaylinaysa si ay u badbaadiso laakiin markii ay u timid waxay bilowday inay cunto. June waxa uu maqlayaa dhawaaq ka yeeraya qolka hortiisa markuu albaabka furo deriskiisa San ayaa albaabka xoog ku soo galay isagoo ka codsanaya inuu caawiyo sababtoo ah walaalkii ayaa qaniinay asigoo zombie ah. June waxa uu isku dayayaa inuu iska saaro qolka laakiin San waa iska caabinaa asigoo u sheegaya inuu caafimaad qabo. ugu dambeyn June waxa uu ogolaaday inuu isticmaalo musqusha. markaas June waxa uu TV-ga ka maqlayaa in dadka ay isku bedelayaan zombie sabab la xiriirta infection-ka oo xoolo u faafayo. calaamadaha cudurkana waxaa kamid ah dagaal badan iyo qaniinyo. June waxa uu si degdeg ah u la boodayaa midi waxa uuna ku taagayaa San marka uu ka soo baxo musqusha isagoo arkaya dhaawaca gacantiisa. San waxa uu ku dhaaranayaa inuusan jiranayn laakiin isla markiiba indhihiisa casaan ayay noqdeen waxa uuna si lama filaan ah u weeraray June waxa uu awooday inuu riixo oo albaabka dibadda uga saaro kadib dagaal yar. June albaabka ayuuna si adag u xiray waxa uuna ku aadiyay albaabka talaagad waxa uu isku dayayaa inuu la xiriiro qoyskiisa balse taleefanku shaqeymaayo. nasiib wanaag waxa uu helayaa fariin hooyadii uga timid taasoo leh in ay bad qabaan laakiin aysan guriga imaan karin waxayna u sheegayaan inuu ku jiro guriga uusan banaanka uga soo bixin. TV-ga waxaa laga sheegayaa in dadku ay haystaan cunto iyo biyo ku filan muddo 60 maalmood taasoo June uu ka qoomeynayo maadaama uusan ku soo adeegan lacagtii la siiyay. wuxuu bilaabay inuu cuntadiisa kaydsado. subaxii xigay professor ayaa sharaxaya in infection maskaxda qaybteeda bidix ku dhacay oo sababay zombie-ga. June weli wax wicitaana ma samayn karo laakiin waxa uu arkayaa baraha bulshada dad isweydiinaya ehelkooda kuna qoraya ciwaankooda baraha bulshada ayagoo dhahaya nolol ayaan rabnaa ay gargaar u helaan. June waxa uu sawir iska qaaday asigoo haysta boor oo ciwaankiisa ku qoran yahay waxa uuna baraha bulshada dhigay isagoo ku qoran yahay waa inaad noolaadaa. wuxuu daawaday fiidiyoo nin saaran dhismo dheer isagoo isticmaalaya bir dheer si uu anteeno u helo. fiidiyowgii wuu dhamaaday markii si lama filaan ah uu ninkii u dhacay. warbixin TV-ga ayaa sheegaysa in dadka zombie-ga isu bedelay ay dhowr daqiiqo ka hor qaylinayaan intaysan isbedelin. June waxa uu diray daroon si uu u eego qolalka kale ee dabaqa waxa uuna ogaaday in guryo badan ay zombie-gu buux dhaafiyeen. si qalad ah waxa uu taleefankiisa ka wacay lambarka aabihi taasoo keentay in daroonta battery ka dhamaado. June waxa uu dib ugu laabtay ciyaartiisii online-ka laakiin internet-ku wuu go'ay. habeenkii waxa ka kiciyay gambaleelka gawaarida markii uu fiiriyay daaqada waxa uu arkayaa askari tooganaya saaxiibadiis kuwaas oo zombie isu bedelay. nasiib darro xabadii ayaa ka dhamaatay waxa uu isku dayay inuu xabad kale gashto laakiin zombie-ga ayaa ku dhagay iyagoona jiideen oo geeyeen waddo kale ay ku sugan yihiin zombie-yaal kale. June waa qayliyay si uu uga celiyo zombie-ga laakiin way istaageen kadib wadana way ku laabteen. lama filaan ah zombie weyn ayaa waxa uu bilaabay inuu June albaabka xoog ugu garaaco ilaa ugu dambeyntii uu riixay talaagadiina uu gudaha ugu soo galay. June waxa uu isku dayayaa inuu albaabka riixo laakiin uu awoodi waayay kadibna waxa uu ordayaa balakoonka kadibna wuu booday markii zombie-ga uu soo galay. zombie-gu waxa uu ka dhacay balakoonka taasoo keentay in June uu si nabad ah uga soo dego balakoonka. waxa uu arkayaa qolo kale oo zombie ah laakiin wuxuu aqoonsanayaa askarigii shalay ay ku dhagayeen oo asna zombie noqday. kadibna wuu xiray albaabka wuuna murugoonayaa kadib markuu ogaaday in zombie-gu soo galay uu burburiyay inta badan cuntadiisii. June waxa uu duubayaa fiidiyoo uu uga argagaxsan yahay xaaladda uu ku sugan yahay. maalintii toddobaad waxa uu bilaabay inuu cabo qamriga aabihii wuxuu daboolay daaqadaha asigoo isticmaalaya warqad midab leh si aysan zombie-gu uga soo arag. wararka TV-ga waxa ay sharaxayaan in infection-ku kaliya faafayo markii dhiig la istaafsiiyo sidaa darteed qofku wuu nabad qabaa haddii uu iska ilaaliyo qaniinyada iyo dhaawaca. zombie-gu waxa ay helayaan awood sare qaar badan oo kamid ah waxa ay awoodaan inay qabtaan howlihii ay hore u qaban jireen sida furidda albaabada. June waxa uu arkayaa xayeysiis aad u qurux badan waxa uu cunayaa cuntadiisii ugu dambeysay balse waxa uu uga xumaanayaa marka uu arkay qoraal yar oo ku dhagan cuntada uu cunay taasoo sheegaysa inay tahay cuntadiisii ugu dambeysay. waxa uuna si xanaaq leh u tuurayaa dhalada biyaha kadibna waxa uu aaday tubada si uu uga soo buuxsaday biyo laakiin waxa uu ogaanayaa in gurgadan ay biyaha dhan ka go'an yihiin waxa uuna ugu dambeyntii leefleefayaa waxa yar oo ku haray miiska. maalintii 10aad June waxa uu duubay fiidiyow isagoo muujinaya sida uu ugu daalay fariimaha TV-ga waxa uuna doonayaa in uu baxo balse zombie-ga weli way joogaan. waxa uuna xasuustay abka degdega ah ee leh barnaamijyada raadiyaha iyo isticmaalka jaakada maqalka si ay u helaan anteeno.
laakiin nasiib xumo wax dhaga ah ma leh. maalintii 15aad si uu niyadiisa u dejiyo waxa uu guriga ku dhex ciyaarayaa qoobka ciyaar. xilligaas waxa uu maqlayaa sawaxan waxa uuna si lama filaan u arkayaa qoyskiisa oo soo laabtay. farxadiisu waxa ay socotay kaliya ilbiriqsiyo ka hor inta uusan ogaan inuu riyoonayo. wuu dhacay waxa uuna dareemayaa in rajadiisa aad u yaraatay ilaa uu si lama filaan u maqlay fariin cod ah. waxa uu maqlayaa codka hooyadii oo dhahaya guriga joog, balse qaylada suumbiga ayuu la maqli weynayaa. June waxa uu bilaabayaa inuu anteeno u raadiyo taleefanka isagoo koraya balakoonka. nasiib darro fariintan waxa ay dhamaatay markii suumbiga uu soo weeraray dhismihii uu deganaa. June gabi ahaanba wuu niyadjabay waxa uuna bilaabayaa burburinta alaabta guriga taal, balse weli kuma filna inuu xakameeyo xanaaqiisa. waxa uuna u soo baxay banaanka ilaa uu mid ka mid ah suumbiga uu garaacay uu dilay. waxa uuna fiirinayaa geeskiisa waxa uu arkayaa suumbi, laakiin waa saaxiibkiisa San oo deriskiisa ahaa. June waxa uu isku dayayaa inuu iska celiyo suumbiga, laakiin qayladu waxa ay soo jiidatay kuwa kale. wuu ordayaa isagoo aadaya weeshka, laakiin suumbi kale ayaa ka soo baxay. June oo argagaxsan ayaa isla markiiba cararayay, wuxuuna awoodayaa inuu isku qariyo meel ka hor inta aysan arag suumbi. markii uu suumbigu ka fogaado waxa uu bilaabayaa inuu ku laabto qolkiisa. June waxa uu arkayaa mid mar dhow suumbi noqday, laakiin waa indha la'aan. waxa uu sugayaa inta uu ka dhaqaaqayo, kadibna waxa uu cararayaa qolkiisa isla markii uu albaabka xiray. suumbigu waxa uu maqlayaa dhawaaqa, waxa ayna isugu tageen banaanka. maalintii 20aad June waxa uu cararayaa banaanka markii uu maqlo qaraxyo. waxa uuna ogaanayaa in magaalada la duqeynayo, isagoo u haysta inay tani tahay dhammaadkii noloshiisa. waxa uuna duubayaa fiidyo oo ku dhahayo goodbye ka hor inta uusan fuulin kursi si uu isu dilo, laakiin si lama filaan ah iftiin laysar ah ayaa qolkiisa gudaha u soo galayo. waxa uuna tilmaamayaa ereyga no. June waxa uu bilaabayaa inuu si degdeg ah isaga furo xariga, kadibna waxa uu akhriyay jumlada uu tilmaamayo iftiinku oo ah ha noqon nacas. markii uu fiiriyo banaanka waxa uu arkayaa gabar la yiraahdo Yubin oo daawanaysa iyadoo adeegsanaysa doob biraha, iyagoo isticmaalaysa gacan haatin iyo qoraal. waxa ay ku ballameen inay is arkaan 7 fiidnimo. markii uu fiiriyo qolkeeda waxa uu ogaanayaa in ay haysato cunto iyo biyo, xitaa waxa ay samaysato damin ayagu tala gashay suumbiga. subaxii xigtay June waxa uu hurday hurdo xad dhaaf ah, waxa uuna ka kacay 11 subaxnimo. Yubin ayaa u naxday, sidaa darteed waxa ay bilowday inay salaanto iyagoo adeegsanaya calaamado iyo qoraallo taleefanka. waxa ayna isdhaafsadeen magacyadooda. markaas Yubin waxa ay maqashay dhawaaq. waxa ay u sheegtay June inay mar kale kulmi doonaan 7 fiidnimo. sidaa darteed waxa ay bilowday inay fiiriso dhawaaqa iyadoo wadata faas. waxa ayna la kulantay suumbi galay daminkeeda, kadibna way dishay. habeenkaas waxa da'ay roob ayagoo labadooduba baaldiye dhigteen si ay biyo ugu galaan. markii ay fiirisay dhismaha June waxay ogaatay in dabaqa 8aad uu faaruq yahay. subaxii xigtay June waxa uu toosay waqti dambe, laakiin waxa uu la taag darnaa gaajo. Yubin ayaa dareentay waxayna isku dayday inay xarig ku tuurto balakoonka iyadoo adeegsanaysa kubad, balse kubaddii waxa ay ku dhacday dhulka. June waxa uu diray daroon oo ku xiray xarig. markii ay dhinacyada si fiican uga xireen, Yubin waxa ay u dirtay cunto iyo qoraal ay ku leedahay cuntada si tartiib ah u cun. markaas June waxa uu arkayaa kubaddii ay qabsadeen suumbi ayaa jiidaya xariga. Yubin miiska ayaa ku dhacay, kadibna way suuxday. suumbigu waxa uu bilaabayaa inuu xariga fuulo. June waxa uu bilaabayaa inuu tuuro dhalooyin maran si uu u joojiyo suumbiga, balse midna ma gaarin. markaas ayuu daroontii u dirayaa suumbiga si uu u mashquuliyo, laakiin markii uu suumbi kale bilaabay inuu soo garaaco albaabka, June wuu mashquulay. daroontiina waxa qabtay suumbi uuna burburiyay, laakiin ka hor inta uusan kor u sii fuulin, Yubin ayaa soo toostay. waxa ayna gacanta ka goysay suumbigii, dhulka ayuuna ku dhacay. June waxa uu waqti yar kadib ogaanayaa in raashinku gabaabsi uu ka yahay. waxa kale oo xasuusanayaa in uusan la noolin qoyskiisa, isaga oo lugaha iyo madaxa qarsanaya. habeenbarkii waxa uu ka baxayaa guriga. waxa uu jidadka ku arkayaa meydad badan, si ayar ah ayuuna u socdaa. kadib waxa uu galayaa guriga San. halkaas ayuu raashin, sameecad iyo qalabka maqalka uu ka soo qaatay, iyo jaakada isgaarsiinta. markii uu sariirta fiiriyo waxa uu arkayaa wax daboolan, wuxuuna ka qaadayaa bustaha. waxaa ku daboolan meyd dumar ah. waxaa isla markiiba soo weeraraya walaalka San oo suumbi noqday, isagoo June dhulka dhigay. June waxa uu isaga dhigayaa meydka haweeneydii, taasoo u suurtagelisay inuu baxsado. albaabka ayuuna ka xirtay. June waxa uu cunay cuntadii, kadibna waxa uu isku xirxiray fiiladii si uu anteeno ugu helo sameecadda, balse way u shaqay weysay. kadib waxa uu bacda ku riday xoogaa cunto ah asigoo u dhiibay Yubin. waxa ayna iska wareysanayaan xaaladihii ay soo mareen ayagoo isku dhiirigelinaya. Yubin ayaa waxa ay u sheegtaa in ay ku fikirtay inay nolosha isdhaafiso. markaasay waxa ay maqleen buuq ayagoo moodo roob, balse markii ay fiiriyeen banaanka waxa ay arkayaan dhammaan suumbiyadii magaalada oo soo koraya dhismaha ay saarnaayeen. labadoodu waxay isku dayayaan inay aamusaan. si kadisa Yubin ayaa qalad samaysay, waxa ayna dareensiisay halka ay joogto suumbiga. waxaa mar kale wada hadlaya Yubin iyo June. Yubin waxa ay sheegtaa in dabaqa 8aad uu bannaan yahay, waxa ayna go'aansadeen inay halkaas ku kulmaan. June waxa uu rabaa qorshe uu ku tagi karo, laakiin Yubin si geesinimo leh waxay uga soo booday dabaqi iyadoo adeegsanaysa xargo. si degdeg ah ayayna dhulka u tagtay. suumbi ayaa isla markiina eryanaya, balse si xirfad leh ayay uga baxsanaysaa. mararka qaarna waxa ay adeegsanaysaa faas. intii ay ordaysay waxa ay si kedisa u heshay baskoolad uu boolisku lahaa. mid ka mid ah suumbiyada ayaana ku boodaya, balse inta uusan qaniinin June ayaa garaacaya. hadda si wada jir ah ayay suumbiga ula dagaalamayaan. ugu dambeyntii waxa ay galeen dhismihii, waxa ayna xireen albaabka iyagoo ka cararaya suumbiga soo koraya dabaqa.
markii ay dabaqa sideedad gaaraan waxay raadinayaan qol maran dikadiisa waxa ay maqlayaan buuq waxayna ogaanayaan in Sumbi uu joogo dabaqan Yubin waxay si degdeg ah u raadsataa qol furan markaas albaab ayaa furmaya waxaana ka soo baxaya nin afduuban way ka cabsadeen balse Yubin waxa ay dareentay inuu yahay nin naxariis badan wuxuuna la wadaagayaa raashin iyo biyo waxa uu u sheegayaa war ay ku faraxaan isagoo leh waxaan helaa mararka qaar anteeno isagoo oo maqlay in ay imaan doonaan kooxda samata bixinta labadooduna aad ayay u farxeen laakiin si lama filaan ah June wuu miir beelaa ninkii waxa uu biyaha ugu darayaa daawo Yubin waxa ay cabtay biyo yar sidaas darteed waxa ay dareemaysaa madax xanuun waxa uuna geynayaa qol kale qolkaas waxa jooga haweeney ninkan xaaskiisa ahayd oo Sumbi noqotay oo ilmaheedii horay u cuntay ninku waxa uu ku xiray xarig si uu isaga celiyo June waxa uu ka kacayaa hurdada waxa uuna baskooladii ku qabtaa ninkii isagoo weydiinaya in go'aankiisa uu dib uga fikiro balse ninku wuu diidayaa in uu ka laabto laakiin ninku waxa uu raadinayaa midi Yubin waxay si xoog leh ula dagaalamaysaa Sumbigi laakiin aad ayuu xoog badan yahay ugu dambeyn Yubin waxay jukumaan wajiga u daboolaysaa Sumbigi markaas ayaa ninku albaabka furaya si uu u arko waxa dhacay isla markaas Yubin waxay xaaskiisa ku tuurtaa isaga waxayna bilowday inay isaga cunto Yubin waxa ay toogataa labadooda si ay u dhameystirto waaqa risaasta waxa dareemaya dhammaan Sumbiga banaanka jooga markii ay Yubin siisay baskoolada June waxay weydiisanaysaa in uu dilo balse markii hore wuu diidayaa balse markii ay tiraado waa inaan dhintaa wuu u ogolaanayaa inuu toogto laakiin ka hor inta aysan toogan waxa uu maqlayaa buuq diyaaradaha samata bixinta ayaa imaanaya labadoodu way dadaalayaan ugu dambeyntii waxay gaarayaan saqafka sare ee dhismaha halkaas oo ay ka heleen askar la dagaalamaysa Sumbiga diyaarad helicopter ayaa u imaanaysa waxayna ku baxsanayaan diyaaradda ayagoo arkaya magaalada burburtay June waxa uu helayaa fariin ka timid qoyskiisa ayagoo u sheegaya in ay nool yihiin intii uu fiirinayo magaalada waxa uu xasuusanayaa qoraaladii oo dhiga baraha bulshada oo aha waa inaan noolaadaa waxa uu ku bedelayaa waa noolahay sida ayuuna filim ku dhamaanayaa waa ku maasan tahay subscribe like share